soo dhawaada saaxiibayaal wiilkiina sirta films bilowga muuqaalka waxaan arkaynaa nin lagu magacaabo Jake oo ka shaqeynaya bakhaar lagu magacaabo Storage 24 isagoo hawshiisa caadiga wata ayaa si lama filaan dhawaq qarax aad weyn dadkii oo dhan ka nixiyay kadib waxaan aragnaa qiiq aad weyn oo ka baxaya dhismaha u dhow waxaana soo baxay warar sheegaya in bam uu halkaas ka qarxay laakiin markii uu kormeerihii dibadda u soo baxay si uu u soo eego waxaa cadaatay in motor diyaaradeed uu ku soo dhacay gaadhigiisa kaas oo burburiyay gaadhigii dhanka kale dhammaan albaabada bakhaarka ayaa si toos iskugu waxayna aragnaa in meel u dhow bakhaarka haweeney magaceeda la yiraahdo Lucky ay eegeeda lugaysiinaysay si lama filaan ay indhaheedu u qabteen haraadiga diyaaradda burburtay isla markiiba waxay wacday saaxiibkeed si ay u weydiisay inuu telefonkiisa ka eego wararka magaalada ka jira isla waqtigaas eegeeda ayaa si lama filaan u cararay oo galay mid kamid ah konteenarada laakiin markii ay ka daba tagtay waxay aragtay darracad oo yaab leh oo meel walba daadsan laakiin eegeedii ayaa sii galay gudaha waxaana aragtay eegeedii oo eegaya meel mugdiya kaasoo aad u cabsanaya si lama filaan wuxuu caray dhanka mugdiga isagoo ciyaya ilbiriqsiye yar kadibna waxaa la maqlay dhawaqiisa oo aad u xun laakiin waxay fahamtay in eegeedii dhintay dhanka kale waxaan aragnaa meel aagaas u dhow nin lagu magacaabo Charlie oo saaxiibkiis maag la socda iyagoo u socda Storage 24 Charlie waxay dhawaan kala tageen gabadh la yiraahdo Shelly taasoo aad u murugo gelisay kadib waxaan raadiyaha ka maqlaynaa in diyaarad military ay ku burburtay bartamaha London waxaa la sheegay in diyaaraddaas ay sideshay sira oo aad u khatar badan kadib saacado ay ku xirnaayeen saxmadda gaadiidka Charlie iyo Mark waxay ugu dambeyn soo gaadheen Storage 24 markii ay albaabka tageen waxay ogaadeen in albaabka bakhaarku uu iskiis ku xidhay saacado ka hor gudaha waxaa ku jiray makaanig magaciisa la yiraahdo Bob kaasoo isku dayay inuu hagaajiyo wax yar kadib Bob wuxuu adeegsaday qalab si uu u furo albaabka degdega taasoo u ogolaatay Mark iyo Charlie inay gudaha soo galaan maamulihiina way baxday laakiin taasi ma waarin dhaqso ayuuna albaabkii mar kale iskiis ugu xidhay Bob wuxuu u sheegay Jake inuu hagaajiyo nidaamka degdega haddii kale cidna ma awoodi doonto inay soo gasho ama baxdo iyadoo aan caawinaad la helin Jake ayaa Bob geeyay qaybta hoose halkaas oo uu Bob ku arkay in daboolka hawo-mareenka uu jabnaa Bob wax badan kama fakerin laakiin wuxuu maqlay dhawaqyo yaab leh oo meel fog ka imaanaya wuxuuna ku qayliyay yaa jooga halkan laakiin wax jawaaba ma helin wuxuu bilaabay inuu tartiib u socdo oo uu iftiinka eego markaas ayuu Jake gadaalka ka yimid oo ka nixiyay Jake wuxuu tusay sanduuqa korontada kadibna uu iska baxay dhanka kale dabaqa saddexaad Shelly ayaa alaabteeda xirxiranaysay iyadoo ay la joogaan saaxiibteed Nicky iyo saaxiibkeed Chris isla markaas Charlie iyo Mark ayaa halkaas soo gaadhay Shelly markii ay aragtay waxay tidhi waxay hore ugu sii sheegtay fariin inay waqtigan imaanayso si aanay isku arkin Charlie wuxuu kaliya rabay inuu ogaado sababta ay u kala tageen laakiin si lama filaan korontada ayaa tagtay dhanka soo dhaweynta Jake ayaa shaqadiisa habaarayay kadibna wuxuu aaday qaybta hoose si uu Bob u soo eego wuxuu arkay Bob oo jaranjarada fadhiya markii uu dhawaaday wuxuu ogaaday in Bob la weeraray oo uu dhaawac halis qabo si lama filaan bahal ayaa Jake horguuray markii Jake uu arkay bahalka aad buu cabsaday wuxuuna u cararay xagga sare laakiin bahalkii ayaa si xoog u garaacay albaabka Jake wuxuu fahmay in haddii uu halkaas sii joogo aanu badbaadi doonin sidaa darteed markiiba uu cararay dhanka kale Charlie iyo Mark ayaa yimid albaabka si ay uga baxaan bakhaarka laakiin uu xidhnaa waxayna u dhaqaaqeen in cidi joogto laakiin cidna ma joogin Mark wuxuu arkay in gaadhigii Bob ee makaaniga uu weli yaalo bannaanka wuxuu isku dayay inuu waco lambarkii gaadhiga ku qornaa laakiin telefonkiisu wax signal ma lahayn isla waqtigaas Chris ayaa maqlay dhawaqa qaylo wuxuuna u soo baxay hoolka si uu u soo eego mar kale leerka ayaa tegay wuxuuna isticmaalay tooshka telefonkiisa wuxuuna gaadhay qol albaabkiisu yara furan yahay markuu gudaha galay aad buu u naxay sababtoo ah wuxuu hortaagnaa caruusadaha dukaamada kuwaasoo u muuqday kuwa cabsi leh si lama filaana mid ka mid ah caruusadaha ayaa hadlay Chrisna uu yaabay laakiin wuxuu ogaaday inaanu ahayn caruusad ee uu ahaa Jake aad buu u cabsanayay wuxuuna ku celcelinayay waa inaan halkan ka baxnaa ka hor inta aanu imaan haddii kale cidna ma badbaadi doonto ka hor inta uusan Chris waxba odhan gacan cabsi leh ayaa Jake sare u jiiday isla markiiba dhismaha oo dhan waxaa laga maqlay guuxa bahal aad u khatara Mark ayaa Shelly u sheegay inay halkaas joogto isaguna wuxuu aaday bannaanka si uu wax u soo eego isla waqtigaas Charlie ayaa yimid oo weydiiyay halka ay Shelly joogto Shelly ayaa qolka ka soo baxday iyadoo dharkeeda hagaajinaysa dhulka ayaa la wareegay wuxuuna fahmay in Mark iyo Shelly uu xidhiidh ka dhaxeeyo cadho darteedna wuxuu Mark ku dhuftay far xooggan Shelly ayaa isku dayday inay celiso laakiin Charlie aad buu u cadhaysnaa Shelly waxay qiratay inay muddo khiyaamaysay iyadoo raaligelin bixinaysa Charlie si uu ilmadiisa u qariyo aamusnaan ayuu halkaas uga tegay Nicky oo falkan aragtay way dhibsatay waxayna aaday inay Charlie dejiso markii ay sii mariyeen qolkii caruusadaha waxay maqleen dhawaaq wayna galeen si ay u eegaan Nicky waxay aragtay Chris oo gees ku dhuumanaya kaasoo u fadhiya sidii caruusad oo kale Nicky oo walwalsan ayaa weydiisay waxa dhacay markii uu Chris madaxa kor u qaaday Nicky waxay aragtay inuu dhaawacan yahay Nicky ayaa bilowday inay dhiigga ka tirtirto laakiin dhibic kale oo dhiig ayaa soo dhacday waxayna eegeen saqafka halka uu dhiiggu ka imaanayo Charlie ayaa tooshka telefonka Chris kor ugu eegay laakiin waxba ma jirin
dilin markii uu saas is yidhi Jack ayaa si lama filaan hortooda ugu soo dhacay wejigiisana si xun ayaa loo jarjaray mana uusan awoodin inuu hadlo markii uu Charlie arkay tan uu dhacay ninkina cabsi darteed ay qolka uga carartay dhanka kale Mark iyo Shelley ayaa soo gaadhay iyaguna qolkii caruusadaha Charlie ayaa u sheegay in Jack la soo weeraray oo uu xaalad xun ku sugan yahay Chris ayaana bilaabay si khalkhal uu ku jiro inuu u yiraahdo dhamaantiin waa dhimanaynaa dhinaca kale nin da'da dhexe ayaa ninkii gadaal ka qabtay qayladeeda markii la maqlay dadkii kale ayaa soo gaadhay Shelleyna ninkii ayay gadaal kaga dhufatay shay wuuna suuxay ninkii waxay u maleynaysay in ninkan yahay kan dadka dhibaya laakiin markii la baaray waxa kaliya laga helay caday wax huba oo kalena muusan haysan wayna iskugu tageen oo ninkii xidheen wuxuuna bilaabay inuu u hadlo sida qof waalan ninkan waxaa lagu magacaabaa David wuxuuna aaminsanaa in dadkan ay u shaqeeyaan xaaskiisa Mary ninkii waxay fahamtay in ninkan miirkiisu aanu dhammaystirnayn laakiinse aan wax dambiya lahayn dhab ahaantii David kadib furinkii xaaskiisa wuxuu ku dhoomanayay mid ka mid ah qolka Storage 24 si uu uga baxsado qareenka xaaskiisa Mary laakiin adna iga dhuman oo like saar muuqaalka oo hilmaamtay inaad like saarto channelkana subscribe oo nagu soo bir haddii aad nagu cusub tahay si aan halkan ugu saaxiibno haddii aynu soo noqono muuqaalkeena isla waqtigaas dhammaantood waxay maqleen guuxa bahalka sidii isaga oo ku jira hawo mareenka Charlie ayaa Nick u sheegay inay xidho qolalka isla markii albaabka la xidhayna leerkii ayaa tagay si lama filaan albaabka ayaa si xoog leh looga soo garaacay banaanka Chris ayaa aad u naxay oo yiri bahalku nama deyn doono isla markii albaabka la jabiyay wuxuu u cararay dhismaha dhexe laakiin bahalkii ayaa ka daba tagay Chrisna wuxuu isku dayay inuu dhuunto laakiin ugu dambeyntii bahalkii uu helay bahalkii ayaa u soo dhawaaday Chris wuxuuna dhageystay garaaca wadnihiisa kadibna hal mar ayuu wadnaha kala baxay laabtiisa dhanka kale David ayaa kooxda u sheegay in qolkiisu uu yahay midka kaliya ee gudaha laga xidhan karo qorshahan wuxuu u sameeyay si uu uga dhunto xaaskiisa Mary dhammaantood waxay u carareen qolka David ee dabaqa afraad laakiin David ayaa waayay furihii saxda ahaa dhinac walba waxay ka maqlayeen codka bahalka khatarta ah wayna wada cabsadeen waxayna ku qeyliyeen David inuu si degdeg ah albaabka u furo taas oo David ka sii argagixisay si lama filaana bahalkii ayaa meel fog ka arkay laakiin nasiib wanaag David albaabkii uu furay wayna galeen ka hor inta uusan bahalku soo gaadhin hadda in muddo ah way badbaadeen sidaa darteed waxay ka fikirayaan qorshaha xiga waxay arkeen in hal darbi uu ka samaysan yahay telefishino David wuxuu sheegay inuu war kala socday tan iyo markii diyaaraddu soo dhacday dawladda ayaa xidhay aagga bartamaha London waxaana loo soo diray taangiyo si loola tacaalo khatarta laakiin shaygan dilaya cidna ma garanaysa waxa uu yahay David wuxuu yiri shaygani maaha xayawaan dunida ka yimid wuxuu hubaa inuu yahay alien lagu siday diyaaradda taasina ay tahay sababta shilka diyaaradda loogu qaatay si dhaba Mark ayaa yiri ma ninkan waalin ayaad dhageysanaysaan laakiin cidna ma dhageysan Mark sababtoo ah indhahooda ayay ku arkeen bahalka Charlie wuxuu yiri waa inay si degdeg ah uga baxnaa halkan wuxuuna xasuustay in markii ay halkan soo galayeen Bob uu isticmaalayay qalab si uu albaabka u furo David ayaa yiri Bob wuxuu aadi lahaa qaybta hoose si uu nidaamka u hagaajiyo haddii ay helaan Bob ama qalabkiisa way furi karaan albaabka si ay u baxaan laakiin qorshahan waxaa ku jiray dhibaato waa inay 5 dabaq hoos u degaan jidkana bahalka ayaa meel kasta joogi kara sidoo kale hawo mareenka uma isticmaali karaan inay soo gudbaan dabaqyada sidoo kalena maysan haysan wax huba David wuxuu sheegay in qolalka kale laga yaabo in laga helo waxyaalo anfaca David maadaama uu muddo halkaas ku noolaa wuxuu yaqaanay sida hawo mareenka looga galo qolalka Charlie iyo Mark ayaa galay hawo mareenka iyagoo raacaya tilmaamaha David markii ay in muddo ah gurguuranayeen Mark ayaa bilaabay inuu ka hadlo Shelley iyo xiriirkooda Charlie ayaa joojiyay oo yiri halkan nafteena ayaa halis ku jirta waana inaan wada shaqeynaa wax yar kadib waxay galeen qol waxayna bilaabeen inay baadhaan sanduuqyada waxay heleen waxyaabo yaab leh laakiin aan waxtar lahayn ilaa ay ugu dambeyntii ka heleen mindiyo raadiyaal baarud iyo bir alaabtii ayay soo qaadeen waxayna si lama filaan u maqleen guuc wayna istaageen markii codkii joogsaday ayay haddana dhaqaaqeen si lama filaan bahalkii ayaa banaanka ka soo weeraray hawo mareenka meesha uu Charlie joogay si dhaqso ah ayay isugu dayeen inay hore u socdaan laakiin bahalkii aad buu u soo dhawaaday Mark ayaa si dirqiya sare ugu baxay wuxuuna Charlie ka dalbaday boorsada alaabta ay soo ururiyeen ka hor inta uusan Charlie soo jiidin weerarkii ayaa mar kale bilaabmay farta bahalkuna waxay soo gashay dhuunta Mark wuxuu go'aansaday inuu Charlie halkaas kaga tago si uu u dhinto isaguna naftiisa badbaadiyo oo dib u noqdo David markii uu qolka ku soo laabtay wuxuu dadkii u sheegay inuu isku dayay inuu Charlie badbaadiyo laakiin uu joojin kari waayay bahalka in muddo ay u baroorteen Charlie kadibna afartoodii waxay u diyaar garoobeen inay aadaan qaybta hoose dhanka kale waxaan aragnaa in dhab ahaantii Charlie uu ka badbaaday bahalkii si dirqiya ayuu ku galay qol wuxuuna arkay in sanduuqyada ay ka buuxaan alaabta carruurtu ku ciyaarto kadib wuxuu maqlay codka bahalka markaasuu jabiyay albaabka qolka oo dibadda u soo baxay laakiin bahalkii ayaa mar horeba hoolka ku sugayay Charlie meel uu u baxsada ma haysan sidaa darteed wuxuu soo qabtay caruusad oo hortiisa dhigay bahalkii ilbiriqsiyo gudahooda ayuu caruusadii ku burburiyay isla waqtigaas ee carruureed ayaa iskii u shaqeeyay oo bilaabay inuu ciyo bahalkii oo arkay eegan yaab kale uu yara naxay Charlie wuxuu ka faa'iidaystay fursadaas wuuna cararay isagoo ordaya ayuu Mark ka hor yimi markii dadkii kale arkeen in Charlie
nool yahay aad bay u naxeen waqti badan ma haysan sidaa darteed Charlie wuxuu uga digay in bahalkii soo socdo waxay isku dayeen inay hoos u cararaan laakiin bahalkii ayaa ka hor yimid David ayaa markaas go'aansaday inuu bahalka hor istaaga si uu dadka u badbaadiyo qorshaha David wuxuu ahaa inuu bahalka caayo haddii loo baahdana uu la dagaalamo David wuxuu ogaa inaanu badbaadi doonin laakiin wuxuu yidhi haddii la dhimanayo si qurux badan ha loo dhinto ugu dambeyntii bahalkii ayaa weeraray David kaasoo wejiga ka xumeeyey madaxana ka burburiyey laakiin geesinimada David awgeed dadkii kale waxay ku guuleysteen inay gaadhaan qaybta hoose Charlie ayaa kooxda u qaybiyey laba qaybood wuxuuna go'aansaday inuu la joogo Nicky qaybta hoose aad bay u madoobeed isla markii ay tartiib u socdeen waxaana ragnaa in alienku gees ku dhuumanayo oo uu fursad sugayo Charlie iyo Nicky waxay helayaan haraadiga meedka Bob hadda waxay iska ilaaween karaahiyada waxayna bilaabeen inay raadiyaan qalabkii albaabka lagu furayay si lama filaana makaanigii ayaa dhaqaaqay Charlie-na aad buu u naxay laakiin ugu dambeyntii waxay heleen qalabkii waxayna ku soo laabteen dabaqa koobaad Mark ayaa keligii sugayay markii la weydiiyey wuxuu sheegay in alienku uu qaatay Shelly Charlie aad buu u murugooday diyaarna uma ahayn inuu Shelly halkaas kaga tago markii Mark isku dayay inuu joojiyo Charlie cadho darteed ayuu u feedhay labadoodii ayaa halkaas ku dagaalamay waxaan aragnaa Shelly oo hawada lalaada gacanta loogu jirta alienka laakiin alienku markan ma degdegsanayn Shelly waxay si qarsoodiya jeebkeeda kala soo baxday mindi waxayna weerartay alienkii sidaas ayayna nafteeda ku badbaadisay Charlie ayaa raadiyaa kala hadlay oo u sheegay inay timaado dabaqa hoose ugu dambeyn way ka jawaabtay alienkii ayaa isku dayay inuu Shelly qabto laakiin waxaa hor yimid eeyga carruurta laakiin markan Charlie ayaa baarud ku xidhay eeygii alienkii ayaa mar kale eeygii ku mashquulay si lama filaana eeygii ayaa qarxay Charlie iyo Nicky gees ayay ku dhunteen qaraxana dhagaha ayay ka xidheen Charlie ayaa qiiqa dhexdiisa ka soo baxay oo Shelly u tegay hab ayayna is siiyeen markii ay Nicky hoos u raaceen waxay arkeen in alienkii wali uu nool yahay rajadooda kaliya waxay ahayd qalabkii si albaabka loo furo oo ay u baxsadaan laakiin albaabka laga gala soo dhaweynta waxa hore u sii xidhay Mark oo isticmaalaya bir Mark wuxuu ka baqayay in haddii afartooda wada socdaan qof la dili karo laakiin haddii alienku uu helo saddexda kale isagoo fursad fiican ayuu haystaa oo uu ku badbaado inkastoo ay aad u baryeen Mark albaabka ma furin laakiin Charlie ayaa xooggiisa oo dhan iskugu dayay oo albaabkii jabiyey kadib wuxuu qalabkii Bob ku xidhay albaabka si uu u furo marxaladaas dhexdeeda Shelly ayaa Mark dharbaaxo xoogan ku dhufatay si lama filaana alienkii ayaa derbiga soo dilaaciyay oo hortooda soo istaagay wuxuu qabtay Mark garbihiisa wuxuuna bilaabay inuu si naxariis daraa wejigiisa u cuno Charlie uu ka daalay orodka sidaa darteed wuxuu bir ku weeraray alienka laakiin alienka ayaa ka xoog batay markuu alienku dili rabay Charlie Nicky ayaa ku buufisay haanta dabdamiska fursadaas markii uu helay Charlie wuxuu bir ka dhex dusiyay caloosha bahalka markii ay bakhaarka ka baxeen waxay arkeen in dalka oo dhan ay aliens soo weerareen noloshooduna aanay dib dambe u noqonayn sidii hore haddii aad ka heshay muuqaalka like saar channelkana subscribe oo nagu soo biir haddii aad nagu cusub tahay waxaana jeclaan lahaa inaad qaybta faallada igula wadaagto aragtidaada waxaana inoo balana muuqaalkan xiga haddii Ilaahay nabad inagu gaarsiiyo